رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سلام يا ولا الله شرفت لي بحلم channel كيغا عش حراوة كسود هذا channel كيغا ولا ليال ما توحد دوني أنا كهلا هذه قبرتين رنتي wax ka duwan ayaan maanta ka hadlayaa maxaan maanta doonaya runtii horta meelo badan baan gacmeeyaa wixii markaan israadaba mudan yihiin baan ka hadlaa maantana waxaan doonayaa inaan ka hadlo xagga caafimaadkan doonayaa inaan ka hadlo caafimaadku qof walba muhiim buu yahay wuu jecel yahay qof walba inuu caafimaad ku noolaado marka maanta waxaan doonayaa ninka cadaanka aad arkaysaan halkan nin cadaan aad ku aragtaan nin calool weyn baad ku aragtaan ninkaasaan doonayaa maanta inaan ka hadlo ninka calooshiisa waxa ka weyn baruur maaha laakiin waa cudur ilaahay ku riday cudurkaa marka ku dhacay baan doonaynaa ma garanaysaa inaan yar ka hadlo innaga cudurro badan baa dadka ku dhaca xanuun baa qof isaga dhaca uurweynaad baa qof isaga dhaca lama yaqaano xanuunkiisa waxa keenay lama garanayo muxuu yahay lama garanayo waan iska aragnaa un qof iska calool weyn calool weyn un iska leh laakiin lama fahansana waxa uu yahay maadaama marka inagu caafimaadka runtii aynu u baahannahay wax badanna aynan ka garanayn waxaan jeclaystay maanta inaan ma garanaysaa xanuunka ka hadlo iyo ninka iyo siduu ma garanaysaa uga bogsaday insha allah biidmillaah horta ninkaanu waxa la yidhahdaa magaciisa waran baa la yidhahdaa magaciisa cudur ayaa ku dhacay dee cudurada ilaahay keenay ka mid ah cudurada ilaahay keenay ee magacyada faraha badan loo bixiyey cudur ah ayaa ku dhacay polycystic baa la yidhahdaa cudurka magaciisa runtii cudurkaas meesha uu ku dhacana waa la jaraa oo yacni mar hadduu ku dhaco dawo ma laha ay ka dhigan tahay in la gooyo mooyaane ninkaa marka wuxuu kaga dhacay keliyuu kaga dhacay keliyaha markuu kaga dhacay way barareen keliya way weynaadeen ilaa cudurkii baa saameeyey caloolba markuu yeeshay ninka xanuunsa inuu nin dadka u caloosha weyn kana calool weyn bismillaah wuxuu lagu qiyaasay waa 35 weeyaan 35 kilogram weeyaan 35 kiilo ka sheekay adigu marka calooshaada kaaga jirto haddii kaaga jirto calooshaada maxad oo maalin walba habeenka la seexanaysid maalinta la sotoosaysid la soconaysid xanuun intaa leeg baa dareemi lahayd ilaahay subxaana watacaala ilaahay baa mahad iska leh isaga ilaahay mahad u celinaynaa aan xanuunkaa nagu ridin walaalaha ee muslimiinta ku dhacayna waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu ka caafiyo maxaa markaa dhacay weeyaan maadaama xanuunkaasi uu yahay xanuun garanaysa laga daawo lahayn siina fidaayo xanuunku xanuun sii fidaya 6 bilood gudahood ninkaas uu dhiman lahaa te horta ilaahay ba geerida iyo noloshaba haya laakiin isagu wuxuu sheegay muddo 6 bilood marka dee uu eegay noloshii ku jiray inuu 6 bilood uu ku dhiman lahaa laakiin noloshii geerida ilaahay baa iska leh taa waa inaan ogaanaa laakiin qof walbaba waxbaa looga dhigaa garanaysaa wad looga dhigaa marka muxuu cudurkan saameyn kale uu jirkiisa ku yeeshay baa jirtay oo ahayd maadaama wix calooshii uu yahay saa calooshii ugu fidayo wuxuu xiray sababkana waa dee meesha hawadaynu ka qaadanano hawadii marka ninka hawadii baa soo mari weyday soo bixi weyday mid dibaddaana waa u iman weyday ogowno innaga hawada sanbabkeenu wuxuu qaataa midna uu soo saaraa midna wuu qaataa weliba ta uu qaato waa ta caafimaadka leh aynu u baahannahay tan gudaha ku jirtana waa ta uskaga uu iska saarayo ka fikir labadiiba markay shaqayn waayaan tii baxaysa iyo tii aad soo qaadanaysaba muxuu u baahda markaa hawuu baahda oxygen buu u baahda marka oxygen buu qaadanaya ilaahay amarkii ninkii wuxuu go'aansaday cudurkanu maadaama uu yahay cudur aan daawo lahayn oo intuu daawo qaataan ku caafimaadayn ay tahay in la jaro 50-50 wax la yidhahdo konton buu qaatay cusbitaal ku yaala Oxford magaalada London Oxford ku yaala waddanka meeshaan ka dhacdana waa Ingiriiska magaalada London bay ka dhacday wuxuu qaatay 50-50
nolol ama geeri halkii ayuu operation ku galay ta kaloo dheeraydna ninku waxa weeyaan wuxuu ahaa nin paralyze ahaa oo stroke xanuunka lidhaha ku dhacay isagana markaa xanuuno badan baa runtii ninkiis ku qabsaday markaa sidaasuu wuxuu ku qaatay marka go-aan ah keliyii meeshan laga saaro keliyuhu markaa 100,000kiiba qof bay ku dhacaan 1,000 qofba ilaahay amarka qof bay ku dhacaan cudur macnaha saa uu sii weyn oo adduunka dee halis ku ah fara badan ma aha halis weeyaan laakiin yacnaa intuu ku dhacaa yar waana dhaxal sida la sheegayna waa dhaxal oo cudurkaasu dhaxal buu noqdaa dee waalidka iyo inaad ka dhaxasho marka ujeedadeedu marka waxa weeyaan inaynu ogaano cudurrada ta kale waxa weeyaan keliyaha waa meelaha ugu jilicsan xanuun hadduu kugu dhacana xanuuno badan buu khatar u yahay keliya la-aan cidina ma noolaan karayso wadan la-aan cidina ma noolaan karayso waxaad ogaanaysaa marka meel ku xanuunto ama keliya lagaa qabto ama beer lagaa qabto ama wadna lagaa qabto markaas waxaad ogaanaysaa caafimaadku qiimaha uu leeyahay ayaad ogaanaysaa laakiin qofka intaan meel laga qaban meelaha xubnahaas xubin ka mid intaan laga qaban weligii ma ogaan karo soomaalidana waxaynu caan ku nahay waxa weeyaan sonkorta milaxa iyo saliidda saddexdaas waa saddexda halista nafteena ku ah haddii soomaalidu saddexdaa iska dayso waxaan aaminsanahay qof walba ilaahay in buu ugu talagalay laakiin at least xitaa qofku markuu nool yahay inuu nolol caafimaad qaba ku noolaado intii ilaahay ugu talagalay laakiin intii ilaahay kugu talagalay haddaad cudur kula noolaato ka wan anu waxaan dhan lahaa marka soomaalidu saddexdaa iska ilaaliyaan hadday doonayaan noloshoodu inay u hagaagto inuu caafimaadkoodu tamaam noqdo runtii intaasaan doonaya horta maanta inaan la wadaago waxaan siri walaalaha soomaaliyeed intaa la wadaag waayo faa'iidooyin baa ku jira fara badan runtii dee cibri qaadashana way ku jirtaa ilaahay baa geriya nolol baa haya marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin walaalaha sharafta leh mar walba waxaan anigu runtii isleeyahay waxa bulshada runtii wanaag ama dee faa'iido u ah usoo bandhig insha allah biidni illaah saas aan garanaysaay insha allahu aan ku socodsiinaynaa walaalaha sharafta leh igu xidhana waad mahadsantihiin kuwaan igu xidhnayne wixii ka dambeeya hadday arki doonaan waxaan leeyahay walaalaha sharafta soo dhawaada subscribe-kana nagu caawiya aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhiirigelin baan u baahannahay walaalayaal dhiirigelin haddaan helo anigu waxa weeyaan runtii waxyaaba bulshada caafimaadkeedu ku jiro wanaaggeedu ku jiro ayaan soo bandhigayaa marka dee nagu taageera walaalayaal waad mahadsantihiin allah idin sharfo cafiya caafimaad baa idinkaga tegaya walaalaha sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu